hay walaal soo dhawow. waan dhawaanayaho Adiga waxaa tahay master. in isku days kala days Okay, walaal maxaa kaa caawinaa? warniyahow waxaan arkanay warqad halkaas aa kusoo qorteen anoo bugle iyo qashin meesha ku cunaay mana akhriniyo warqadda shaqada waxay ku saabsan tahay laakiin nin shaqa doonaha ahniyo baahi dishiniyo Okay, walaal waxaa dhan waa haystaa soo maaha. waa kuwan shahaadooyinkayga niyaho waa haystaa Iska dhaaf dhib malaan shaqadan shaqa Hay. shahaadii wax u baahan maahan. Anaga kuu sharaxayna shaqadan nidaamka ku imaanaysid iyo teemka ku imaanaysid. waa mahadsan tahay Marka teemka markaa ku leeyahay teemka saxda ina ku time waa ku imaahaniyo nin gaajo disho ilkaha ku socda ahaniyo maxaa yeelay aniga shaqaalaha inaan isku dhacno marno. Okay, waa ku wanaagsantaa soo maaha shaqada. okay Okay, isu warqadii aan kusoo bixinaa saxiixeed. ilaahu khayr ka dhig ilaahu khayr ka dhig Okay, warqadii waa kuwanaa. Halkan Ilaahu waxaa waa ka ku dhig. qoran shaqada iyo sharciyadeeda. Si fiican iskaga akhri adoo maskaxdaada degan tahay. waayahay Marka waxaa ku dhihi lahaa si fiican iskaga akhri. waa mahadsan tahay kee qalinka kale hade anaa aqaane anaa aqri ilaa aqraa waxaana faraha badan aqri karaa meel walbo saxiix baanaa saxiixa meeshii banaan oo yaa ku bedelaya hadaa dhimata ahna ma dhal abaareed ku qor cagartaadi tartiibkayga meel walbo saxiix rabtaa saxiixa saxiix reebadiyada ku qabaa xataa alaabay baa koorta cagarta Okay, waa dhammaysan. waa dhameeyey Waa mahadsantahay marka. laakiin mudane ma ii sharaxday shaqada waxay ku saabsan tahay Yaa. Oo adi maba iska akhrin miyaa meesha wax ku qornay. niyo maya meelaha muhiimka ah iska saxsaxiix moogtaa niyo Calaa kulli xaal shaqadaadu waxay tahay inaad ka shaqayso keedka meedadka. yaa Haa, waa xarunta keedka meedadka. yaa Weliba waxaa kaa rabaa inaad shaqadan ka taxadirtid. mudan wax ma kuu sheega aniga meydka ma taxadiri karo mana tirtiri kara inuu meydka xoolo miyaa mase dad niyaho meedadka dad waaye marka waxaa kaa doonaya shaqada inaad si fiican ugu taxadirtid. Shaqadan waa shaqo familkeena kasoo shaqayn jireen aabahayga aabihiisa waa shaqo famil anigana shaqadan lagu wareejiyey marka waxaa kaa doonaya shaqada inaad si fiican igu qabatid saxiixna waa ka haystaa ugu. laakiin mudane niyo aniga meyd ma tirtiri kara waa ka cabsaaniyo se waa adi niyo wax kala raadi Shaqadan waa shaqo fiican uguna bishi mushaaraha waxaa u qaadanaysaa $200. yaa $200 Haa, bil walba $200 qaadanaysaa. Shaqadan haddii aad si fiican u qabsatid waxaa ogaanaysaa in mushaarka lagu kordhinayo bil walbana ku kordhinayo. laakiin niyaho laakiin mudane niyo hal aragnaa jirta niyaho aniga nin miskiin oo ilkaha ku socdaan ahay oo gaaja waashay niyaho xataa trisbor ma haysti marka xoogo xataa qababax xataa ii dhiib leed way anfici lehed Ciyaalmadaad bilaadaniyo waxaa sir inaa ka hadashay ma mushaarka waxaa ku ogolan lahaa 30%. 30% Haa, 30% inaa ku hormarin ku ogolan. laakiin ma fiicnaa tiin waqtigan galaya ka waran Dhib ma laha waqti yarta imaa kartaa maxaa yeelay aniga waxaa ka haysanaa saxiix. Marka waqti yarta iska imaa kartaa. okay laakiin belati wallahi galheedi Niyo shaqada marka shaqo fiican oo ma fahanta. thank you Maadaama ilkaha ku socod shaqada adigu ku anfacaysa waay. Marka waxaa imaa kartaa berri ama berri dambo. Adiga ku taal waqti yarta imaa kartaa. niyaho haddaan beri imaha hayaa hadda sii wadaay niyaho Shaqada waxaa sii wadaniyo nin waji wax kala lahaay meedadka marka asaa ka taxadirayo. okay mudane ka waran laakiin 30% lacagta goormaan dhigaha ka qabaan niyaho goorma ay soo direen Waxaasaa ka cabsanin niyo berri baa ku soo direen. waa mahadsantaa Gurigaaga ka muuqata. yaa meed u tirtiri jiray yaa isoo waco ilaahay baa ruwaay yaa what ala lacagta 60% waa isoo diray yes lacagteeda waa ka helaa ku dhahasho kuwan waa ugoyaha qorsho ina u dego waa wallahi warxariif maanta shaqo ma aadaysid maaniyo maanta dhan waa iska baashaalo sahil badda fi adduuna cunusaaniyo maxaa shaqada ugoys baa isbada waa jeclaaniyo maanta jimco waayniyo aan kaa raaxaystaniyo maanta fasax waayo waa faanta u malaynano si fiican waa iska baashaalaa markano iska baashaalo saas waay lajan yaa isoo waco ilaahay baari waaye yaa isoo waco yaa abaa arkii waaye shaf dooro waaye kan lacagan ka qaba ni waa ku jaraa wallahi jabka gashaa kartaada xarfaana kusoo wacooda maaniyo naaga baa bartay shaqada markaas naaga barata malayna isku dayso xariif baa noqotay yaa haddana waa liisoo wacoyaasay waaye kii waa wallah kan maxaa ku sameeya ilaahay baari waaye asan yeela ilaahay baari waaye lacagna waa igu leeyahay ninkan ana aqaana dhal abaareeda u dhiibaa abtiyo fiiri ninka shaqada ay soo wacoyno meesha shaqada laga soo wacoy milkiilaha waa ma fahantay saaxiiba waxay dhaheen shaqo meed meel lagu waardiyahay iyo meelaha xarumaha meedkani waan ma aqaan waxaas niyo
اوكي اسكو ديس شلون waa baxday meesha aaday shaqadan oo soo saxiixday haddana waxaa leedahay ma qaban karo abtiyo adaniyahow anigu ogtaa miskiina aan isku days taas ma fiicno isku days brother waa isu wacaya gaaja iigeysaniyo bilis waa kana la hadalniyo ninka waa dhinta dhiniyo isku days ma noola dhiniyo bilis noo ku bariya saaxiib ya waa dhinta dhahay saaxiib oo ninka waa wargaftan saaxiib waa iga cadaayin taas ma samayn kara saaxiib baxara galay hor lacag soo qadaho u beer la hadlo waa kala qad ku jira la hadal saaxiib kan la ilaaha illa allah halo min maqsha walaal magacay waa dhalamaanay horta marka hore ninka isku daysaay hadda waa nin saaxiibkay waa ogtahay adduunkan waa laba beri shalay waa isla fadhinay hadda shalaydaana kuu sheegaa walaahi bilaa isla fadhinay shalay isla fadhinay darjiinka xaafid hortina isla fadhinay maantana markaa u imaaday hadda wallahi inaan kugu dhalay naftu waa ka aada naftu kala ilaaba waa baxday wallahi bilaa waa nacsanahay xaaladda aad ay xuntaa saaxiib ma fahanta nin kalisidaas waa dhintay waa dhintay khatar u jiro ajil ma imaanaysaa hadda ma imaanay hadda ku jir waxyar ku jirniyo ku jir telefoonka ay mudan oo kugu soo celinaaye xaaladda xuntaas isku dis ninka waa imaanaa u dhowyaa saaxibadii ku kala xasaminay daddo imaanaya soo doonaaniyo ilaahay baar waa qorshe inaa keena waa sugnaa hadda meeshaan noogu imaanaa ninka anaa qorshaha ay sug adduunka wallahi waa loo beri wallahi halkan maxaa ka jiro yaa ii sheegi karo adiga aniga taleefon kula hadlay mudan aniga waa soo dhawaa mudane maxaa ku dhacay ninkan ii sheegi karta ninkan wax ku dhacay adiga maxaa takiya taleefon kala hadlay isku days lacagta shalay soo qaadatay ma la dhimi karta maanta mana ka yeelay maxaa kala hadlaysaa mudane sug bala fiiriye ma isku daysaa wallahi ninka waa dhintay haddaa toojiita horteeda ku dhintay waxaad isku daysaa hadda lugta nafsa u baahan taqaanaa bisiga waa isku days ninka isku days oo inta taagan waay maxaa ku mudane kala baxda baasha mudane xataa waxaa rabnaa karfan waxaa uga dhigna ama xataa aan ku dugno qabriga ku geena lacag xataa haddaan is nagu saaciday biliis mudan aan ku baryaa biliis okay waxaa kuu sheegayaa anaa soo laaban doono waana kuu soo laabanaynaa marka adiga anagaa soo laaban doono okay ay mudane saaxiibkeena waa iga dhinta xaalku waa xun yahay mida yeelaya maan ii alla saaxiibkee isku days alla saaxiibkee isku days waa dhintay isku days soo kac waa baxeen wejigaaga waraaba hala tahay waa ka baxsato wallahi ma jilna horta waa dishay wallahi bahala tahay عدك فكري والله بالله طلع ما طر ما جيفري ما اسكر ديار هذيك هذه ما انت وكستادان كو ديبانيو وا كبحسته ولا دل امانه ما سجلي ما انت راح حسني ولا عقتا قادنيو اي والله بالله انا عزيز تاكس enjoy your life نيو noloshaad u raaxayniyo ايوه سي فعل ku salaawna ilbaan dafan baashala يا كان السر سي عمل يجوجل لا اله صجف يجوجل صجف اوينا يجوجل على كل حال سي تبو magaca igu celi markale dalabareed okay isku days markii ugu dambeysay oo xafiiska inooga soo tagay wuxuu inoo saxiixay warqadahana waxaa ku qoran sharciyada company uu yaalo iyo nidaamka anaga ku shaqeyno isku days wuxuu kaloo saxiixay haddii uu dhinto ama uu waasho wuxuu shaqadani bedelay in la dhahayo dalabareedna waa adiga marka waxaa kaa doonaynaa inaad soo raacdid si aad shaqadana u qabsatid booskaas aad u gashid لكن مدن فيران كواصل قرابنا بالسولا anaga waxa shaqo ku malay dalabareed ayaa noola sheegay marka laba mid lacagta inaad siisid 100% ama shaqada noo raacdid
يا نكان يا aniga saaxiibahay waa isla qaraaban jirnay mudan ma fahamtay wallahi bilaa waa isqaraaban soo quraaniga warqadaana ku qoranta fiirso marka waa inaa akhristaa warqadaan iskudays marka waa inaa soo raacdaa warqadaan iga qabo marka kaama yeelayna shaqada waa inaa noo soo raactay mana nagu socdaa anaga fadlanna soo raac dhalabaareed shaqada waa inaa noo soo raacdaa wala ma saas ma dhacayso bilis wax yar jaanis anaa had soo nolosiina ninkan sidee ku soo nolosiinaysaa nin dhinta waaba dhinta ninkaan u jeedaa marka waa inaan soo raacdaa sug isug hadda la hadlaa isug okay anaa soo kicinaa isug waxyar sug ora isku days soo kacay u aamin dadkan isku days soo kac isku days isug waxyar mudan isku days kac wejigaaga hose isku days sug anaa aqaan mudan isug waxyar hal mar isug adduunka hilbada fo u jecel yahay sanka u saaraa isku days hadduu soo kaca isug adaa arki doone mucarafsada soo kac sug waa ka cunaa soo kac horaa isku days anaa ka cunaa hilibkaaga cunaa isku days waa ka cunaa wara isku days walaa dhalabaareed waxaa meesha ku heys wax ku soconaya maa waxaa wareejinaysid wax soconaya maa adigana wax ma soo nooleey karti ilaah wax soo nooleey karo marka waxaa kuu sheegaya aniga middan waxaan ka yeelaya maahan ma fahmaysaa meedkaana waa qaadanaani isku days waa qaadanaya meedkiisa meedkaana waxaa u qaadan doonaa xarunta keedka meedadka marka waxaa kuu sheegayaa lacagta markaa soo heshid ama aad diyaar u noqotid shaqada inaad dhamaystirtid meedkan qaado noo imaw okay meedkan iisoo dalacday iisoo qaad waxaa kaloo jiro arday jaamacad oo ii balansan marka waxay iga rabaa meed cusub wax kala soo run maaha marka ardaydaas waxay sameynayaan beerka keliyaha iyo xubnaha muhiimka ay kala baxayaan weliba waxay aad u jecel yihiin xaniinyaha Bowie!